halkani waa Faras TV oo aad kala socon kartaan wararka geeska iyo geyga ay Soomaalidu degto kuwooda ugu xiisaha badan. Qodobada aan wararka idinku haynana waxaa ka mid ah Mustafe Cagjar oo ciidamo u diyaarinaya dagaalka axmaarada. Taliyaha ciidamada difaaca qaranka Itoobiya oo la sheegay in la khaarajiyay. Abiy oo Kubaaqay in dagaal la qaado lana garab istaago ciidamada difaaca qaranka Itoobiya. Ciidamada Tigreega oo la wareegay gobolka Walqayd iyo xuduudda Canfarta. fadlan haddaad nagu cusub tahay janaalka subscribe saar gambalaalka furo si aad u hesho xogaha ugu dambeeya. fideogana like saar share dheh oo la wadaag asxaabtaada. wixii kala bixin ahna xagga hoose nagu reeb. kusoo dhawaada qodobadii wararka oo faahfaahsan. wararkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Marwo Yusuf. Mustafe Cagjar iyo taliska ciidamadiisa ayaa la sheegayaa inay diyaarinayaan ciidamo Maleesiya iyo Liibolis Soomaaliyeed isugu jira, kuwaas oo ay u dirayaan deegaanka axmaarada si ay axmaaro uga difaacaan weerarada joogtada ah ee ay TPLF ku hayso. arrintan ayaa noqonaysa mid taariikh xumo, dulli iyo maangaabnimo ku ah caqliyadda dadka Soomaaliyeed in wiilashoodii loo diro maanta inay axmaaro difaacaan, inagoo og halka ay axmaaro iyo Soomaali kala taagan tahay. dhanka kale, ciidamada deegaamadu waxay ku alkuman yihiin difaacidda dalka iyo deegaanka, laakiin uma asaasna inay laba qowmiyadood oo Itoobiyaan ah oo islaynaya u kala hiriyaan. waana arrin aan sharciga dalka Itoobiya iyo kuwa deegaamada meelna ka waafaqsanayn iyo duulimad cad oo iskarabsi ah. taliyihii guud ee ciidamada difaaca qaranka ee dalka Itoobiya Burhanu Julla ayaa la sheegayaa in la khaarajiyay. khaarajinta taliyahan ayaa waxaa la sheegayaa inay TPLF dishay, balse lama cadaynin meesha lagu dilay iyo qaabka dilkiisa loo sameeyey. xogta ayaa waxay intaas ku daraysaa in qoyskii taliya Burhanu Julla ay codsadeen tiro ka dhowr jeer in taliyaha ay dowladdu meel ku sheegto, balse waxaa qoyska loo sheegay oo jawaab looga dhigay inuu howlgal ku maqan yahay. isku soo wada duubo, taliya Burhanu Julla ayaan saxaafadda ka soo muuqanin muddo 2 bilood ku dhow, oo ay xaafadiisiina daydayeysaa meel uu jaan iyo cirib dhigayna aysan ogeyn ilaa inta ay maanta ka soo baxday wararka sheegaya in la khaarajiyay. Abiy ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya ayaa sheegay inaan loo dulqaadan karin dhaqdhaqaaqyada ay TPLF wado ee ka dhanka ah qowmiyadaha dalka, gaar ahaan shacabka qowmiyadda axmaarada. Abiy wuxuu tilmaamay inay ciidamada militariga Itoobiya ay jiilka Tigreega uga soo baxeen cadaadisyadii iyo eedeymihii kaga imanayay beesha caalamka ee ahaa in marinada kaalmada bini'aadamnimo la furo si deeqaha loo gaarsiiyo dadka tabaalaysan iyo si ay dadku dalaga u beertaan maadaama oo xilli roobaadkii la galay. balse ilaa hadda weli ay beesha caalamku cadaadisyadii sii wado oo aysan wax garowshiyo ah siinaynin dowladda federaalka Itoobiya oo ay kasii darayaan, taasoo ku tusaysa inay beesha caalamku si cad u taageerayso jamhadda TPLF. waa sida uu Abiy hadalka u dhigay. sidaas darteedna aan intaas ka badan indhaha laga sii qabsan karin waxyeelooyinka TPLF ay ku hayso shacabka Itoobiya, loona baahan yahay inay dowladdiisu dadka ka badbaadiso. wuxuu sidoo kale sheegay inay TPLF soo dagaalgelinayso carruuro yaryar oo uu sheegay
inay daroogo siinayso taasoo u baahan buu yidhi in wax laga qabto balse beesha caalamku ay iska indhatirayso iyo inaysan TPLF keliya dhaqdhaqaaqyadan wadin ee uu jiro cadow dibadda ka taageeraya. ugu dambeyn Abiy wuxuu ugu baaqay shacabweynaha dalka Itoobiya inay garab istaagaan ciidamada militariga Itoobiya oo ay ilaashadaan qarannimada dalka cadowgana isu kaashadaan isla markaana ay lagama maarmaan tahay in dagaal lagu qaado jabhadda TPLF. ciidamada difaaca Tigrayga ee ka amar qaata jabhadda mayalka iyo mowqifka adag ee TPLF ayaa sheegtay inay gacanta ku dhigeen guud ahaan gobolka Walqayd iyo sidoo kale xuduudda Canfarta iyo deegaankooda u dhaxaysa isla markaana ay xireen jidka tareenka ee Jabuuti iyo Itoobiya isku xidha oo ah dhulkii Itoobiya.